cuntooyinka u wanaagsan caafimaadka indhaha inta badan sida muuqaalka aan ku sheegi doono waa mid inta badan aan isticmaalno laakiin laga yaabo dadka qaar oo kale in ay xilliyada qaar ay ka cagajiidaan oo kale cunto qaar ay necab yihiin oo kale in ay u horseedo in ay haddii ay cuntooyinkooda ay ka waayaan xanuunyo indhaha in ay kasbadaan oo xataa hadhooti daawooyin ama qarash badan kaga baxayo marka waxaan sameeynaa cuntooyinkaas group aan u sameeynaa haddii group ay ugu jiraan cuntooyin kale xataa hal xaba aan necabtahay mid kale u bedeli karta groupka koowaad waa group aad u muhiim ah kuwaas oo loo yaqaano zeaxanthin lutein sidoo kale carotenoids intaas hal group ayay ku wada jiraan waxay door muhiim ka ciyaarayaan shabakada dambe indhaha cudurro badan indhaha ku dhaco maadaama markadaas iftiin badan oo mar walba ku dhacayo oo aragga u qaabilsan sidoo kale mar walba ee dayactir u baahan tahay cuntooyinka aad ugu muhiima ayaan waxaan soo qaadanaynaa qaybta koowaad anagoo weliba u fiirinayna cuntooyinka markaa dhulka Soomaaliya aad looga helo midda koowaad waxay tahay bagelka koostada spinachka waa cuntooyinka cagaaran ama qudraadka cagaaran oo kale sidoo kale haddii xitaa qofka uu xataa maadooyinka cagaarka uu jecleen oo kale ama meel baadiyo kala jooga ama meel beerley uusan joogin oo kale wuxuu heli karaa galleyda oo kale galleyda waa iyada laftirkeeda maadooyinkan difaaca ka qaadanayo shabakada dambe ee loo yaqaano zeaxanthin luteinka sidoo kale carotenoidka galleyda waa laga helaa sidoo kale maadooyinka laga heli kara ayaa ah qudaarta jaalaha mise huruudda oo kale sida bocorka oo kale sidoo kale barbarooniga oo kale xataa bocorka tiitooga weyn oo kale oo aan cuntada ku jarno oo kale intaas waxaa aad ugu buuxa maadooyinka marka qaar xitaa waxaa laga sameeyaa kaniini aad u qaali ah oo martaqaana bukaanada la siiyo oo cudurrada marka age related macular degeneration oo kale qabo groupka labaad aan soo qaadanayna waxay tahay groupka vitamin A inta badan dadku way fahansan yihiin oo caan waa vitamin A haddii qofka maqlo waxaa ku soo dhacayo in ay u wanaagsan tahay caafimaadka indhaha sidoo kale qofka markuu vitamin A maqlo qudaarada laga helo waxaa ka mid ah karootada aad caan ugu ah haddii qofka xitaa karooto uu heli karin waxaa la mid ah bataatiga macaanka inta laga helo in ka badan xataa laga helaa karootada ay laftirkeeda waa ku bedeli karaa nasiib wanaag inta badan Soomaaliya aad ay u isticmaalaan haddii uu mooga baadiya meel aan laga heli karin uu joogo magaalada laakiin inta magaalada caadi ah loo isticmaalaa iyadana waxay door muhiim ka ciyaaraysaa in dadka habeenada oo kale aan wax si fiican u arki karin oo kale ama cudurro badan oo arag u qaabilsan inay door muhiim ka ciyaarto xataa inay indhaha xafido oo haddii marka qaar qofka cuntadiisa laga waayo ama vitamin A jirkiisa laga waayo waxaa ka soo baxta nabro indhihiisa oo araggiisa qalqal geli karo sidoo kale cuntooyinka groupka laga helo waxaa ka mid ah caanaha ama sida hadday noqoto caano la fadhiisay yogurt ama caanaha caadiga laftirkeeda waxaa aad ugu buuxa vitamin A-ga oo u wanaagsan caafimaadka indhaha marka intaas laba group ayaa ku baxay groupka saddexaad aan u gudbayno wuxuu yahay groupka vitamin E-ga cuntooyinka laga heli karo vitamin E-ga waxaa ka mid ah looska oo kale miraha ayu nooc beenka aan ku casheen oo kale salbukada falfaliirka groupkana waa group aad u muhiim ah oo waxa la yiraahdaa omega 3 fatty acid groupkana wuxuu aad muhiim ugu yahay indhaqaylka oo kale sidoo kale bararka indhaha oo kale waxyaabaha u cuni kartid waxaa ka mid ah kalluunka haddii xitaa qofka uu kalluunka uu ku wanaagsan wuxuu ku bedeli karaa ukunta waliba ukunta asoo qaybta cad oo marqaar ka saaray qaybta dheer oo dhexe oo jaalaha oo kale ka qaad sababtoo dadka qaar qaybta protein oo kale xasaasiyad inay ku qabaan ayaa laga yaabaa groupka ugu dambeeya rabo inaan ku soo gabay muuqaalkan ah vitamin C muuqaal hore aan ka sameeyay waa jirtaa waxay aad ugu difaacdaa caadka indhaha fuulo waxyaabaa laga heli karo waxaa ka mid ah liinta oranjaha in laga helo cabitaan ahaan oo kale waa u qaadan kartaa sidoo kale spandex oo kale kuwo kale oo kale waa jiraan laakiin intaas waa in qof walba uu heli karo intaas aan soo sheegnay cuntooyinkaaga maalinlaha u isticmaashid muu adeegsataa intaas ayaa muuqaalkan ku soo gabaynaa waxay dirjaa caafimaad iyo indhafiyo